halkani waa Toledo Channel wararka ciyaaraha ee maantana waxa kamid ah Chelsea iyo Bayern Munich ayaa ku soo biiray loolanka loogu jiro saxiixa xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Paris Saint-Germain ee Adrien Rabiot. kooxda Inter Milan ayaa dhankeeda iyadana ku guuleysatay loolan maalmihii ugu dambeeyay ay waday oo ku qotoma in heshiis cusub oo saxiixo kabtankooda Mauro Icardi. heshiiskaasi oo gaaraya ilaa 2023. dhinaca kale Luxo ayaa si hordhac ah loo ogaaday in labada kulan ay ugu soo horeysa Manchester United uu sano ciyaari doonin. waxaana wararka intaasi ay ku darayaan in dhaawiciisa sidaasi uu u halis badnayn. Tebet Kato oo isna maalmihii ugu dambeeyay isaga wareersanaa garoonka weyn ee Santiago Bernabeu waxaa la filayaa in Real Madrid uu ciyaaro kulanka ay u baxayso kooxda Atletico Bilbao sida uu saxaafadda u xaqiijiyay Julian Lopetegui. tababare Ernesto Valverde ayaa ka dalbaday maamulka Barcelona inay siiyaan waqti ku filan ka hor inta uusan saxiixin heshiis uu ku joogayo Camp Nou qayb ka mid ah mustaqbalkiisa. Paul Nedved oo ah madaxweyne ku-xigeenka kooxda Juventus isna waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan in 2019 lagu soo biiriyo kooxda Juventus labada xidig ee kala ah Paul Pogba iyo Marcelo oo maalmihii ugu dambeeyayba Juventus ay baadigoobaysay. ugu dambeyntii kooxda Barcelona ayaa suuqyada qaaradda Yurub waxa ay ka baadigoobaysaa daafac ka ciyaari kara dambeedka dambe ee dhanka bidix maadaama la doonayo in lagu nasiiyo difaaca Jordi Alba. waxaana bartilmaameedkooda ugu xoogan uu noqonaya Alberto Moreno, Nacho Monreal iyo Philippe Loos. kuwa waxay hayeen wararka ugu xiisaha badan maanta oo Talaado ah. waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Toledo. sidoo kale ka mid noqo saaxiibada aan ku leeyahay YouTube-ka oo subscribe dhaho channel-kayga. mahadsanid.